Hi guys, السلام عليكم. ساتين كسر هذا فيديو عصب. ما أنت حسديسينا وملنا يا محاقل دم. حالة قبل فيديو استاك because of بحاول على برنامج سكول معنا يعني قبلها أو شيء كان حسيت هذا لكن كان حسيت واو maahan qaarna waa ganacsato weyn qaarna waa ganacsato yar qaarna hadda ganacsiga soo galooyin so anaga maadaama aan ka tirsanahay ganacsatada yar so branchka soo waa qayb gali doona marka waxaan isdhahay why are team wadaynin barnaamijkaysan kala qayb galaynin aadan soo tusaynin waxa lagu qabanayo barnaamijka aniga hotelka ugu jecelahay of favorite kege Kings Castle so quruxdiisan kasta aysan idin la wadaago yeah, by the way wallahi I'm not gonna lie to you guys camera ugu culus gacanta waa dhibsanaya I don't know saa u duubi doono bas yeah so I didn't see the way u labistay you know like waxa xiranahay okay maxaa xiranahay saakadan kulli waa taqaaniin normally iyo backpack okay kaba degan iska qaatay kabahayga dhaadheeray ma xiran kari iyo boorso yeah okay guys anyway wadaasanahay waana baahanahay inaan meesha kasoo cunteeya waaye so inaan meesha kasoo cunteeyana way tahay so let us go لكن كاميرا ما إذا تتوسي كري بنانكا مركا بحو like حافظي إذا كان مركا كبحا إلا تكسي على هلا أو كلام إذا تتوسي كري I'm sorry cause وعبسنا أنا like أرى كاميرا بنانكا ولي ما لخبسانين حتى نسيتها مدينة جوجا مدينة نسكت خاني حال كذا زائد الغرفة فينا ولا ودي مقال هذا استوحى لد maybe a little bit معقول كاميرا ضوتان كاميرا ذوين تواي so كاميرا إير مقادنوي that's why so straight أنت كبحا hotelka taga insha Allah hotelka marka ka degaayo jidadkan ay maybe inaa inta so hotelka marka ka degaayo la galaayo waxas dhan insha Allah idin socodsiina bye bye Kings Castle hadii maaday weedin soo duuway banaankii markaas soo galay because of banaanka badana ciidan ay joogo ciidankana Soomaaliska taqaan xataa hadii meesha uu caadi ay tahay ina duubtid waa lagu su'aala so anyway guys Kings Castle hal mar weedin tusi doona hadii ilaahay idmo hadda imaaday gurigan inta ma ka soconayn soo aad ma baahnay so وخذينا هذا أنت يقصور جلسنا قديه because of برنامج كنا نقول بلا بربع على ده so يا أما هذا برنامج كان أنقذ قلنا أما أحيان هذا فرصة وهلا إنا قديه عندك قديه دونا كل anyway وإذا نسوي حسنا كنيس كاسنا واي ماذا so وايد نتوسط دونا yeah قديه لا أنا كبعد أشتغل قلنا دوينا okay guys hotel كنا نتسجل لا بس لكن ضد برك hotel قيب أنت سبضة ما لا فديا so meeshaan kastoo ma la ogol hadii ay bulsho fadhiisaan la duubo marka you know xafaafan inta waa Kings Castle the name so yeah by the way party hotelka ugu jeclaan qaybtan waay because of horeen sawir waa ugu galaa taxsuustiin this is the best one yeah كراست كنيس كاسة بدنا نعنى تلا yeah guys والله سبحان الله يعني ما القرحان مركل الشيء ماشان هو قرحان على هان it's like here ماشان نجيب كذا معي أنا هذا ماشان سافرية لا تجدواتنا so yeah بعدين انتهت الضربة أنا واخدينها so
yeah. Okay guys, cuntada waa la keenay walow aad u baahan dad badan oo joogan sida horma waa iska buuxsamay soo wax badan ma had la kari inadeeda cuna oo yeah qaybta kore waaye so waxaa laga xigtay jaranjartii dada halkaas fadhiya mudooyi kariso yeah qaybtan san waaye ilaa iyo intaan qaybtan ugu jeclaan waa taas adaa wax kalarada isku dardaran jeclaa ilaa maxaysa so by the way malahan maxaa lagu leeyahay waxyaabo sheegay hi guys maanta waxaan meeshaan kula kulmay magacay idil maasha Allah taariisna waa tahay maasha Allah idil waxay soo saartay product oo maasha Allah aan ahaan aad iyo jabiyay oo magaala productigan waxa solution u raadinayay gaaska Soomaaliya ku soo bal productigan wuxuu qofka ka caawinayaa in acidity jarad jirto inay yaraato tan caloosha xitaa acidka caloosha inuu absorption uu ku sameeyo uu yareeyo sidoo kale hooyooyinka Soomaalida naaska caana inuu u yeelo kale caruurta inuu ku biciyo wiilasha murqahooda inuu dhiso gabdhaha jecel xitaa weight gain iyo weight loss labadaba waa isticmaali karaa marka moogtaa productiga aan camal u caawinaa because ani ahaan canjeerada Soomaaliya aad u nacay hadda waxaan u maleynayaa muddo sanado laga joogo wax canjeera ma cunin waxaa dhici jirtay inta canjeero cunaa waxa ka darbadi jiray inaan waxba cunin subaxaas axsayna waxba cunin haddana gurigeyga markaa intaan guursaneed laakiin hadda gurigeyga canjeero ma laga kariyo aslan maasha Allah insha Allah maasha Allah soo canjeero kasi kartaa productiga inta maxaa la dhahaa boda ajabo ka samaysa cuna caafimaad leh so maasha Allah productiga la soo raadi okay guys barnaamijkan loo bilaabo saas darteed toolka la isku weymaaday so asxaabta meeshaan diyaar ku yihiin hi guys barnaamijka weli ma bilaabanin so inta barnaamijka iska bilaabana banaanka soo baxay yeah by the way maasha Allah barnaamijka wuxuu quseeyaa gabdhaha Soomaalida haweenka Soomaalida oo ganacsiga ku jiro barnaamijkaas uu quseeyaa by the way midda kale waxaa عجيب إلى قبلها أنتوا ضبطان وداير واحد كبر كفوين ما أعرفين ويريين وكجنا لكن ويريين بس لكن ما شاء الله حنا عجيب قبل أنتوا ضبطان وداير واي هذا ويريين هنا يعني إيش تواني قالوا ذي جرام فهمت لوري لواتن كي أنت سواي صدني بفلا مدها وكجنا أنتوا ضبطين لكن وحبضا ماش قبصدي وقبلها لوري لواتن كي ما شاء الله برنامج كل بلم بلاون أنا مالس كفادي مجالي so that's why واسو بحي بنانكا سو aaday barnaamijka markuu bilowdo kulay galaya inta ka horeys meelaas ka war wareega and yeah waxa idin tusaa meel inta badan aan sabra ku soo galay dadka Instagram-kayga la socda way yaqaaneen please Instagram-kayga midda kaleeto iga soo follow gareey because of maanta oo kale video duweyne oo su'aalo iyo jawaab aniga iyo awad waxa aad uga xumahay in aan YouTube anigu wali hadda leeyma ogolaanin in aan statuska YouTube soo gelin karo wali leema ogolaanin waxa step waaye so waxa aad ugu xumaa teamka YouTube ay kala socdo intooda badan inay Instagram igala soconeen hadii aan dhihi lahaa macnaha su'aalaha aad wax ku darsan leedahay oh my goodness aqal hooriga aad uga helay waalkriya ama aqal caadi la dagawaay so I don't know maybe inshallah ani aan war isku dhalashaan hay hadii May 3 oo 2020 ga inshallah ina Sleemaan laga yaabaa
firfircoon kuwa businessyada leh kuwa isku shaqeeya ee rabaa inay business mustaqbal kusoo biiraan business samaystaan maadaama magaaladan aan joogno waxaa nala banaantay in isdhexgal aan sameyno oo gabar walba oo habeen meeshaan ay ku barato dad badan oo maxaa oo barnaamijkeeda ka caawin kara inaan keliya aanan isku imaha kadibna aqoontaasi haddaa u dhaadhaco productida aan soo saaray run ahaantii ani waxaa ahaarta marka hore ganacsigu wuxuu lamid yahay shaqooyinka kale ee badan ee bini aadamka ay u heleen ilaahay hibo ugu dhigay weliba waa shaqo adag oo samir badan u baahan ganacsiga naftirkiisa tababaraan dhihi lahay seminaar waaye 1 2 3 loogu ilbaxo maxaa yeelay qofka inuu ganacsi intuu bilaabo isla markii bulaalo uu faa'iido isla markii way adag tahay sidii loo helo aan waa soo maray ganacsato 14 sano loo jiro ilaa mardhow waxaan gaday waxa uu yeertay macsaro waxa ugu badan waxaana gaday waxa ka jiray jaad iyo dhuxul iyo shidaan aqoon fiican ila fadhiya oo isla kornay inta kaloo la gado waa galay ilmana waa ku koriyay hooyaday oo ganacsateeda waa la geli jiray anoo yar lacag xisaabo anoo 7 sano jiraa bartiin gabdhaha aqoonta leh inay helaan talo inta uusan ganacsiga gelin dhaqaalaha uu wato waxa uu rabo qofka ayuu meel gelin karaa laakiin haddii la dhaho gabadhan inay ganacsi samayso markay rabto hadday tiraa hooyadeed maya waxaan rabaa inaan noqoto baylod ma noqonayso ganacsigana siduu ku baaba'aya marka qofka marka hore waa inuu asaga uu fikirka ka yimaado kadibna uu leeyahay yool uu isleeyahay waa gaari kartaa gabdhaha aqoonta leh iyo dhaqaalihii haddaan isku helno waxaan heli karnaa gabdho hogaamiya bulshada si isbedel dhab ah Soomaaliya ay u hesho laakiin hadday noqoto ganacsiga intii la bilaabo dabka inta lagu shito Okay guys, maanta vlog-an duubaya barnaamijkan kasoo qaybgala businesska wacazamta afra oo laga helay barnaamijka lagu sheegay ganacsiga dumarka ee jira cadan maasha Allah maamooyin oo qayb wacazamay barnaamijka xiraad ku sheegay mahadsantihiin adinki iyo asxaabta xawa barnaamijka wuxuu ka hadlayaa haweenkii ganacsiga gabdhaha ganacsiga ku jiro kuwa inay ganacsi kusoo biiraan kuwa hal abuurada la inuu isku keeno oo kala faa'iidaystaan khibradaha ay leeyihiin isku faa'iideeyaan maamooyinka weyn iyo gabdhaha hadda magaalada kusoo biray marka ganacsiga intaas ku saabsan yahay Soomaali Women in Business waaye inay gabdhaha istaageeraan wax qabsadaan oo halka kasoo wargeystaan barnaamijkan uu guul leeyahay ما شاء الله دمركنا سعبية آدم هي متاح والله مثل الصومالي هذا دمركنا بدنا أقول لي بالتواي هذا هو فرح سنة قبلنا يرينا ويستاجم برنامج هذا الحبنا هيا حرجينا إنه كل حاجة تكوي كان وصلنا قطع دويلة أوكي جايز عسل أوكي فلوك أنت أنا بشوف كبرينا يا أنا محرر كسب حافظ المدينة واي ولا أصحابته ولي وجونا كانوا سيجوا كري إن شاء الله إنه فيديو جينا عجبين رجينا فيديو جينا عجبين لايك سارة سبسكرايب للقناة كسبيرو ولا ساعتين قبل هالكتاب سبيرو المكسو بليو كوسو جارو هذا ولا يدين فيديو جينا رجينا إنه بدين عجبين رجينا باي ذا سومالي كمان حسود ديوس صار شيء بيا anyway وإنه فيديو كله تعمل إن شاء الله باي باي